dhawaan ayay ahayd markii hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani xirsi cali xaaji xasan uu ku eedeeyay xisbiga kulmiye in ay jirdil u geysteen mujaahid ibraahim cabdilaahi maxamuud indhakaraashle isagoo xisbiga kulmiye ku eedeeyay inay weerar ku qaadeen mujaahidkani goor habeennimo ah isla markaasina dhaawacyo ay u geysteen habeen saddexaad isaguna ninkii hadlayay ee ku soo biiray xisbiga ee mujaahidka ahaa ibraahim indhakaraashle waa macruuf mujaahidiinta sanamaha ragii dalka soo halgamay ahaa shalay baa isna nin loo soo diray toori la galiyay oo lagu dilay midii baa la galiyay shalayto hadda bal u fiirsada maxaad wadan u raacday midii lagu galiyay isna waa dhaawac ku yaala wajifa war waxaas ma dalbayna ku noqonaynaa waar kulmiyo dadku khasab ma aha khasab igu doorta ma aha waar dadka barnaamijka iibi ma naan khasbine quluubtooda yaanu kasbanay waar barnaamijka iibi haddaba waxa arintaasi ganafka ku dhuftay isla markaasina waxba kama jiraan ku tilmaamay mujaahidin dhakaraashle isagoo tilmaamay inaanay soo weerarin cid ka socota xisbiga kulmiye waxaana uu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim halkan shirkan jaraa'id waxa ugu kalifay inaan qabto dhacdo maalmahan baa warbaahintu ku jirtay oo laga sheekeynayay oo la siyaasadeeyay oo laga dhigay mu'aamaraad iyo xisbiyo anigu waxaan ahaa ninkii warbaahinta uu ka sheegay hogaamiyuhu heeruha waa la dhaawacay qolada waddan ay lahayn mujaahidka waa la dhaawacay oo waxa lagu dhaawacay waxa dhaawacay kulmiye oo mu'aamaraad bay ahayd ayaa la yiri waxaan cadaynayaa dhacdada dhacday ninka nabarku dhacay waaniga in aanay ahayn wax xusbinimo khusaysa iyo wax kulmiye uu soo maamuliyay ama uu soo maleeyay mid aan ahayn waxay ahayd arrin nin aan xigaalnahay oo aanu si shakhsiyana aan isugu dhacnay marka ummadii dadku waxaan u sheegaynaa inaan dadka fidmo inaan la dhaxligin oo aan lagu oolay oo aan lagu siyaasadayn qolada commissionka waxaan u sheegayaa inay anshaxa xusbiyada sidii horeba ay u sheegeen inay anshaxa ay xusbiyada u sheegaan uu noqdo ama sharciyan ay u raacaan wixii inaama isku horkeena in commissionku awoodiisa iyo doorka uu ku leeyahay ka qaato maxamed jookar telefishinka caalamiga Ariel TV burco